kulanti wanaagsan kusoo dhawaada barnaamijkeenan xogaha dunida ee aan kusoo gudbinno warbixinada Soomaalida iyo xogta caalamka ee degal kasta. barnaamijkeenan waxaad ku dhageysan doontaan dalka Pakistan oo la sheegay inay samaysatay tiradii ugu badnayd ee awoodaha nucleerka iyadoo kordhinaysa awoodeeda nucleerka isla markaana ku dhow in laba jibaar ay dhaafto awoodda nucleerka ee dalka Hindiya iyo tartanka cusub ee awoodda nucleerka ee dunida oo laga deeriyay inta dal xilligani haysta nucleerka iyo kuwa doonaya inay helaan muxuu yahay hubka nucleerka sidiisaba iyo macluumaad kale ayaan idiin soo gudbin doonaa. warbixin ay soo saareen khubaro ka tirsan maxadka caalamiga ah ee qaabilsan cilmi baadhista arrimaha nabadda ee dunida ee Sibri fadhigiisu yahay Stockholm ee dalka Sweden ayaa lagu sheegay inuu kordhay hubka nucleerka ee dalalka qaar dunida oo ay haystaan. wadamadaasi waxaa ka mid ah Shiinaha, Hindiya iyo Pakistan. Shiinuhu wuxuu samaystay 30 xabo oo dheeraada oo hubka nucleerka ah marka la barbar dhigo sanadkii la soo dhaafay. tirada guud ee hadda ay haysato dalka Shiinaha ayaa lagu sheegay 350 xabo oo hubka nucleerka ah, halka dalka Pakistan ay samaysatay 5 xabo oo cusub oo hubka nucleerka ah. tirada guudna waxay noqonaysaa 165 xabo oo madaxyada nucleerka ah. wadanka Hindiya ayaa warbixintu sheegtay inay samaysatay 6 xabo oo dheeraada awoodda nucleerka. guud ahaanna hubka nucleerka ee Hindiya wuxuu hadda gaaraya 156 xabo madaxyada nucleerka sida lagu sheegay warbixinta maxadka Sibri. warbixinta ayaa daha ka qaadaysa inta wadan ee haysta awoodda nucleerka ee dunida oo dhan xilligani oo ay taagan tahay xiisadda u dhaxaysa Mareykanka iyo Iiraan. sheekadani waxaad wax badan uga fahmi kartaa arrimaha hubka nucleerka. hubkani waxaa loo aqoonsan yahay inuu yahay midka wax kumaada oo khasaaraha ugu weyn geysta adduunka oo dhan. qaraxyadiisa aad ayay u awood badan yihiin. hal xabo oo nucleerkana waxa ay baabi'in kartaa magaalo dhan. qumbuladaha awoodda nucleerka waxay aad uga waxyeelo badan yihiin xitaa bombada ugu weyn dunida ee aan ahayn nucleerka. waxaa jira wadamo badan oo ay ka mid tahay dalka Iiraan kuwaas oo aan loo ogolayn inay yeeshaan awoodda nucleerka halka kuwa kalena ay haystaan. waxaa laga yaabaa in su'aalo dhowr ah iska weydiiso arrimaha nucleerka, laakiin ha ka walwalin. waxaan halkani ku soo koobi doonaa jawaabaha aad uga baahan tahay inta badan su'aalahaas ku saabsan nucleerka. muxuu yahay hubka nucleerku? waa waxyaabo qarxa oo si xad dhaaf ah u awood badan. waxaa laga yaabaa inaad xasuusatid ereyada atomis haddii aad soo dhigatay maadada sayniska. kuwaas ayaa qayb ka ah hannaanka loo maro samaynta bambooyinka nucleerka. bambooyinka nucleerku waxay tamartooda ka helaan maadada atomisyada oo kala fida ama isu yimaada oo si wada jira u cufan, taa oo sababta mararka qaar bambooyinka nucleerka ee lagu yeedho atomic bomb. hubka nucleerku wuxuu sii daayaa xaddi aad u fara badan oo shucaaca, waana mid sababi kara waxyeelo badan. sidaas darteedna saamayntu waxay ku sii jiri kartaa xitaa marka qaraxu u dhaco kadib. balse 2 jeer oo keliya ayaa la adeegsaday taariikhda dunida ee nucleerka, waxaana lagu dhuftay waddanka Japan sanadka 1945 xilliga oo uu socday dagaalkii labaad ee dunida. markaasi waxay bambooyinka ay sababeen masiibo weyn iyo khasaare nafeed oo aan la qiyaasi karin. bambooyinka kale ee lagu dhuftay magaalada Nagasaki waxay iyaduna dishay in ka badan 70,000 oo qof. tan iyo xilliga wixii ka dambeeyay nucleerka weli looma adeegsan dagaalada kale. 9 wadan ayaa hadda haysta hubka nucleerka, waxayna kala yihiin Mareykanka oo ugu sarreeya, Britain, Russia, Faransiiska, Shiinaha, Hindiya, Pakistan, Israa'iil iyo Kuuriyada Waqooyi. su'aalaha kale ee inta badani la isweydiiyo waxaa ka mid ah yaa samayn kara hubkani nucleerka. marka si guud loo eego jawaabtu waxay tahay inuu samayn karo qof kasta oo aqoon u leh arrimaha sayniska iyo kimistriga oo farsamada yaqaana qalabka lagu sameeyana heli kara. laakiin marka laga hadlayo wadamada loo ogol yahay samaysashada hubkani, jawaabta su'aashaasi waxay qaadanaysaa waqti dheer, waana sheeko adag. waxaa jira oo loogu yeedhaa is-afgarad xakamaynta hubka nucleerka ah oo la soo gabagabeeyey, kaas oo ah heshiiskii lagu gogol xaadhayay in looga hortago faafitaanka hubka nucleerka
iyo in laga qaado wadamada aan loo ogolayn tan iyo 1970 ilaa iyo 191 wadan oo ay ku jiraan Mareykanka, Russia, Britain, Faransiiska, Shiinaha ayaa saxiixay heshiiskaasi ka hortagaya faafitaanka hubka nucleerka. shantan wadan waxaa loogu yeedhaa dowladaha hubaysan ee nucleerka, waana loo ogol yahay inay haystaan hubka sababtoo ah waxay samaysteen oo ay tijaabiyeen ka hor inta aan heshiiskaasi loo soo gaabiyo NPT aan la dhaqan gelin 1 bishii January ee sanadkii 1967 xitaa iyadoo dalalkani haysta nucleerka ay qayb ka yihiin iyaga qudhooda waxaa laga rabaa inay yareeyaan xaddigiisa loomana ogola in weligood ay sii haystaan. Israa'iil oo weligeed aan qiranin ama beenin inay haysato nucleerka, Hindiya iyo Pakistan midna qayb kama ahan heshiiskaas mana aysan saxiixin. Kuuriyada Waqooyi waxay heshiiskaasi ka baxday sanadkii 2003. Iiraan waxay barnaamijkeeda nucleerka bilowday 1990 markastana waxay ku adkeysanaysay in tamarta nucleerka ee ay samaynayso ay tahay mid nabadeed, laakiin waxaa jira shaki laga qabo in si qarsoodi ah ay u samaysato hubka nucleerka. arrintaasi waxay keeni kartaa in golaha ammaanka qaramada midoobay, Mareykanka iyo midowga Yurub ay cunaqabatayn ku soo rogaan. taasi waxay keentay in sanadkii 2015 ay heshiis galaan Iiraan iyo wadamada quwadda leh, kaas oo ay Iiraan ku saxiixday heshiis ka dhigaya in ay baabi'iso warshadaheeda bacriminta nucleerka si cunaqabataynta looga qaado. laakiin madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa heshiiskaasi cagta ku dhuftay bishii May sanadkii 2018. hadda waxay dalalka reer Yurub Iiraan loolan ay ku gelinayaan in aysan u hoggaansamin qodobada heshiiska. sidoo kale markii sanadkani cirka ay isku sharartay xiisadda ka dhaxaysa Mareykanka iyo Iiraan, madaxweynihii hore ee Mareykanka Donald Trump ayaa wacad ku maray in Iiraan aan loo ogolaan doonin inay yeelato hubka nucleerka ah inta uu isagu madaxweynaha yahay, kadib markii ay cadho ka dhalatay dilkii Mareykanku oo magaalada Baghdad ugu geystay janaalkii sare reer Iiraan Qaasim Suleymani. Iiraan waxay sheegtay inaysan u hoggaansami doonin xadidaadda qaybta ee nucleerka ee heshiiska. sida kor ku xusan, waxaa mustaqbalka la damacsan yahay in hubka nucleerka laga baabi'iyo guud ahaan dunida. tirada babooyinka nucleerka ee dunida waxay hoos u dhaceen 70,000 oo ay haysteen sanadkii 1986. maantana waa 14,000 oo kaliya oo bambooyinka nucleerka. Mareykanka, Britain iyo Russia waxay dhammaantood hoos u dhigayaan xaddiga hubkaasi ee ay haystaan, laakiin waxaa la aaminsan yahay in Shiinaha, Pakistan, Hindiya iyo Kuuriyada Waqooyi ay samaysanayaan bambooyin dheeraada, sida uu sheegay ururka saynisyahanka Mareykanka. bishii Julaay sanadkii 2017 waxay u muuqatay in dunidu ay hal tallaabo ay qaaday sidii looga xoroobi lahaa hubka nucleerka markii ay in ka badan 100 wadan ay saxiixeen qaraar ka soo baxay qaramada midoobay oo dhigaya in si wada jir ah loo baabi'iyo hubkaasi loona mamnuuco. laakiin dalalka ku hubaysan nucleerka oo kala ah Mareykanka, Britain, Faransiiska iyo Russia ayaa horjoogsaday hirgelinta qaraarka. Britain iyo Mareykanku waxay sheegeen in qaraarkaasi uusan damaanad qaadi doonin amniga dunida maadaama nucleerku uu dubdhaxaad u ahaa ilaalinta nabadda caalamka muddo ka badan 70 sano, halka dalalka Mareykanka iyo Britain ay yareynayaan bambooyinkooda oo ay ku jiraan bakaaradooda hubka nucleerka. haddana khubarada ayaa sheegay in ay sii xoojinayaan awoodda bambooyinka ay leeyihiin. Britain ayaa sii casriyeynaysa nidaamkeeda hubka nucleerka. Mareykanka waxaa laga yaabaa in uu lacag dhan 1 trilyan u adeegsado sidii uu kordhin lahaa awoodda nucleerka ilaa sanadka 2040. Kuuriyada Waqooyi waxay sii wadaa tijaabinta iyo horumarinta barnaamijka nucleerka iyada oo gantaalada ay tijaabisay dhowaan. sidaas aawadeed, inkasta oo dunidu ay ku sii yaraanayaan tirada bambooyinka nucleerka marka loo eego 30 sano ka hor, uma muuqato in mar dhow laga xoroobi doono hubkaasi oo loo arko khatarta ugu weyn ee dagaal kale oo dhaca mustaqbalka. yaalkeeda dalka Pakistan waxaa lagu tirinayaa inay ka mid tahay dalalka ugu sareeya ee dhanka saynisyahanada soo saara awoodda nucleerka oo ay uga horeysay dalka Hindiya, iyadoo ilaa hadda ay horumarinayso barnaamijkeeda awoodda oo ay ku sii dhowdahay tirada 170 madaxyada nucleerka ah.